السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك حيران جنالك أد بايدي سلامي. ما أنتوا حنقعدنا 10 كيني استحاد على فوتوشوب وحنروح سوق عدني كمبيوتر وكشوتين كيسة يو انترفيس كهره على فوتوشوب مركز صفر كرييتي نيو سوق عدني. ما أنتوا حنقعدنا 10 كيني استحاد وحنوك سابسين هاي أرجع على فوتوشوب يا مركز صفر دوكيمنت عصب waxyaabaha u baahanahay muhiimka aynu sharxi doonaa insha Allah taala inagoon wada sharaxayn laga bixi maayo hadii aan isniraahno gibi sharaxa waxa interface kana dhaw Photoshop hada isniraahno gibigiisa sharaxa ma sharxi karno marka waxaan sameeynaa inta muhiimka inoo ah ee aynu aadka ugu baahanahay baynu sharaxaynaa marka waxa ka horta xagan sare waxa inoogu yaala tabis far badan waxa ka koobo file edit image layer type select filter 3D view window iyo help marka waxaan u baahanahay horta file maxaan uga baahanahay table waxaan uga baahanahay inuu ku istaagno file waxaan uga baahanahay new oo halkaas waa new oo control+n open control+o save iyo save as marka hadii aan sharaxno iyo close all iyo place embedded intaasaynu sharxi doonaa insha Allah taala hadii aynu xagga sare ka soo bilowno new waa create new dian soo qaadanay kale haddaad imka create haddaad control+n taabato wuxuu ku soo furi doonaa new document oo documentigan maanta hore soo sharaxnay kala waxay noogu xigto open iyaduna waa la mid tii horun bay la mid tahay oo waxaad ka soo furan kartaa wixii computerkaaga ku jira ayaad kaga soo furan kartaa hadii aan hoos u dhaadhacno close waxa weeyaan markaad iska xidhayso imka kale haddaan close taabto wixii iga xidhaya imika file-ka halkan ku jira ayuu xidhaya imika haddaan noo idhaahdo oo aan waxba save karayn inuu soo xidhaya marka haddii aan cancel imika iska idhaahdo oo aan file ku noqdo close all waxa weeyaan marka ay ku furan yihiin dokumentiyo fara badan aad doonayso inaad mar iska soo wada xidho ayaa waxaad taabanaysaa close all waxay noogu xigta save waxa weeyaan documenti aad hore u samaysay oo PSD kugu save garaysna markaad soo furato ee aad wax ka yara bedesho waxba adana PSD dib ugu save gareynaysa waxa sameynaysa inta file tagto ba save taabanaysa marka save marka taabato waxa update gareynaya documentigii hore ku save garaysna ay waxyaabaha kan ka bedeshay ku update gareynay waxay noogu xigta save as waxa weeyaan marka aad imikaas aad samayso document cusub aad soo furato aad wax samayso aad doonayso inaad save garayso aad save as taaban kartaa waxay noogu xigta place embedded waxa weeyaan sida open oo kale marka place embedded imka hadaan taabto sida open to soo furaya hadaan imka background ka ku dhufto on place ilaahdo wuxuu igu soo furaya documentiga dushiisa open laakiin waxa kugu soo furaysa documenti cusub xagga ku soo dhigaysa laakiin place embedded isla documentiga dhexdiisa kugu soo furaysa intaas kaga duwanta iyadu open marka waxay noogu xigay tabka edit leeyahay waxyaabaha aynu uga baahanahay marka tabka edit leeyahay isagu waa undo iyo ka noqoshadii weyn control+z waxay noogu xigtaa waa cut iyo copy iyo ayay noogu xigay copy iyo best badanka aad isticmaalaysaa control+c control+v waxa kale oo halkan uga baahanahay inuu jiro hadii aynu ka noqono waxay noogu xigaa image halkan waxa weeyaan halkan waxa laga galaa waxyaabaha lagu edit kareeyo sawirada brightness-kii level-kii curves-kii exposure-kii vibrancy-kii hue and saturation-kii color balance black and white waxyaabihii lagu edit gareynayay photos-ka weeyaan sawirada waxay noogu xigaa wax kale oo halkan inoogu jira ma jiro waxay noogu jiro oo kaliya create image size hadaan ku dhuftay ko documentiga waa 1290 resolution kuna 300 marka hadaan siraado imka hadaan siraado documentigu ka yar qaldamay size-kiisu halkaas 300 baa ayr ma halkaas 300 ka dhigay 300 markaan ka dhigo kan kalena uu la kordhaya markaa filay ayaa uu la kordhaya ban jeeda ka hoose haydkuna tan markaa imka okay ilaahdo uu ka yar weynaanaya intii hore hadii aan tagno layer halka waxa noogu yaala new layer for background ayay noogu yaala halkan waxa kale oo inoogu jira ma jiro isagana layer xoog ma baahan marka hide layer ba aynu baahnay laakiin iyadoo halkan bay ka fududahay oo halka ishaas ma soo gudfansa marka layer qarnayso imika hadaan afar gees halka saa u dhigo oo doonayo layer-ka inaan qariyo waxaan sameynayaa ishaas ma dul tagaya saas ma ugu dhufanay u qarsoomay marka waxyaabaha qaar
halkan tabiskan jira ku jira halkan bay ka fudud yihiin labada halkan fahankooda ka fudud waxay noogu xiga type iyada waxba uguma baahnin select way noogu xigtaa selection iminka markaad sameynayso weeyaan iminka haddaan kan select gareeyo aan tago halka aan tago quick selection toolka haddaan sidaa idhaahdo aan select gareeyo saas igu select haddaan tago waxaa iga qoran select deselect oo control plus d iyo inverse oo ah inuu kala rogo selectionka oo halkii uu objectigan ka select gareysnaa uu u rogo documentiga inuu select gareeyo haddaan imika inverse idhaa document ku select gareynaya document ku select gareynaya halkii objectiga ka select gareynaya marka intaas weeyaan iyadu select waxba uguma baahnin then control plus d iskan idhaa waxay noogu xiga filter lafteeda waxyaabaha loo isticmaalayay sawirada marka kuwa dambana waxaan uga baahannahay tana aad windowskaas aad loo isticmaalaa oo panelska qaar markay ka qarsoomaan imika haddaad doonayso property banaanka sugan qariyo properties banaanka inooguma jiro haddaan doonino properties panel inaan soo gelino window baad tegaysaa hoos baa u soconaysaa properties baad raadinaysaa properties sax ma saarna imika property panel baa inoo soo kordhay halkaas ugu dhufanaysa halkaas inoo yaala marka haddii imika aan sidaa idhaahdo oo aan panelskan saas soo idhaahdo oo aan gebigooda isku soo qalqaliyo oo halkaas soo wada dhex dhigo imika mid walba halkii kuma celin kartid oo inaad saa tiraa xidhxidha mooyaan ilaa maanta inaad celcelisay noqonayso markaa si yaroo fudud baa loo celiyaa window baad tegaysaa workspace baad tegaysaa waxaa ku dhufanaysaa reset essential sidiisii uu kugu celinaya marka waxyaabihii aadan baahdan aad iska saaraya imka leen taasoo kale halkaas saddexdaasa ku dhufanaysaa close baa leedahay librarieska saasaad leedahay close baa ku dhufanaysaa adjustmentka xaggaa sare iska gey bas imka sidii saxdaa ku noqon intaasaynu uga baahannahay tabiskaa sare waxay noogu xigi doonaa insha allahu tacaala waxaan sharixi doonaa toolbarka kanaynu labada aada u sharixi doonaa inuu aada u isticmaalaynaa markaa kanaynu aada u sharixi doonaa halkaasoo casharku noogu joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad ka heshay videoga like saar subscribe noo saar channelka haddii aad ku cusub tahay haddii kalena noo sii share garay videoga aad baad mahadsantihi wixii su-aaleed u baahatan waxaad iga soo weydiin kartaa telegramka aan linkiga oo xagga descriptionka dhigay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu